asalaamu calaykum soo dhawaada aadan islaam iyo xarjeyniya nadiirnaasantiin dhammaantiin waxaan kasii anbaqaadi doonaa xalaqadeennii saddexaad ee buuggeenna jacaylaan dhammaan lahayn ciwaankeeduna waxa uu ahaa yaan guddoonsiiya qalbigayga tani waa noloshaada waa hadiyad alle ku siiyey adiga ayaana nafsadaada mas-uulka ah maadaama ay tahay nolosha waxaa ugu qiimaha badan aad adduunka ku haysato ma fududa inaad qof noloshaada u hibayso si aad ula wadaagto naftuna waxay u baahan tahay lamaane ay isla wadaagaan nolosha si ay isu dhammaystiraan si kasta oo uu qofku u yahay mid awood badan bulshada saamayn wanaagsan ku dhex leh oo la haysta haddana weli waxa uu u baahan yahay jacayl iyo ruux dareensiiya xasilooni iyo amni alle marka uu ka sheekeynayay ujeeddada nolosha qoyska waxa uu dhahay waxaa ka mid a calaamooyinkiisa inuu idinka abuuray naftiina haween si aas uga xasishaan yeelayna dhexdeenna isjacayl iyo naxariis taasina waxa ugu sugan calaamad qomkii fikiraya haddii aad si fiican uga fiirsato aayaddan waxaa lagu xusay 3 arrimood oo nolosha aadamaha muhiim u ah midda koobaad isu xasilooni dhanka maskaxda iyo jirka ah midda labaad isjacayl kalgacal wadaag labada dhan ah naxariis isu naxariisasho isu damqasho xiriirka keliya adiga dooran karta 100% waa guurka maxaa yeelay ma dooran kartid inta kale ee cilaaqaadka sida aabe hooyo walaal qaraabada iyo xitaa carruurta sidaa darteed su-aasha ah yaan siiyaa qalbigayga maaha su'aal si fudud looga jawaabi karo maadaama guurku uu ka mid yahay go'aamada ugu adag nolosha sababta oo ah waxaad xulanaysaa qofkii aad la wadaagi lahayd inta kaaga harsan noloshaada waxaa muhiima inaad si fiican oo degan ugu fiirsato qofka aad u hibayn lahayd qalbigaaga mana rabo inaan kaa cabsiiyo balse guurka ka hor iyosan ku qaadin xamaasad amba hebel waa guursaday adigana guurso mahmaah soomaaliyeed ayaa waxa uu ahaa geedkii orod lagu karo orod ayaa looga soo degaa barhooy inkabayaalagdegin inaad qalbigaaga siiso qof u qalmo waa mid ka mid ah go'aamada ugu adag sidaa darteed waxa laga yaabo inuu wakhti badan uu kugu qaato doorashada lamaanaha saxda ah waxaana jira shuruudo dhowra oo kaa caawinaya si aadan ugu dhicin dhibaato adiga oo raadinaya iimaanta guurka xulasho qaldan waxay sababi kartaa dhibaatooyin fara badan adigana aadan jeclayn qofka kalena uusan jeclayn waxayna ka mid tahay waxyaabaha alla laga baryo inuu kaa badbaadiyo allahayow waxaan kaa migan gelayaa lamaane sabab u noqda inay ciro i gasho inta aan la gaarin xilligeedii waxaa la yidhaahdaa wiilkaagu hal habeen buu hiilkaaga baahan yahay waana habeenka aad hooyadiis doonayso waxaan bilaabaynaa safar aanu magac darnay yaa igu habboon inta aanan bilaabin safarkaas ogow in safarkaasi adiga kaa bilaabmayo bal haddaba waxaad si saxa warqada ugu qortaa qofka adiga aad tahay waxaad jeceshahay waxaadan jeclayn waxaad ku fiican tahay iyo waxaad ku liidato haddii kugu adkaato baaritaanka naftaada isu day inaad weydiiso dadka kugu dhow sida asxaabtaada iyo dadka sida fiican ku yaqaan sidoo kalena warqadda dhinaceeda kale waxaad ka qortaa waxaad noloshaada ka rabto yoolkaaga nolosha iyo waxa aad ka rabto lamaanahaaga nolosha macaankeeda ma uusan dhadhamin qofkii aan lahayn lamaane uu ku xasilo oo uu ku dego allahay wadna aragtaa sicad wanaagsan cutubkeena labaad salaamu calaykum